السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي آلا كدوada telefishanka caalamiga SBTV qodobada wararka daawad doontan ay kamid ah maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo doorasho ka dhawaaqay iyadoo aan la rajay in maalimaha xulashada guddiga hogaamiye doona doorashada ka dhigi doonta maamulka koonfur galbeed dhinaca kale madaxweynaha Cabdicasiis Xasan talada haya ndiidi ini kooyan ama hagalan magaalada Baydhabo musharaxiintii iyo madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Xasan iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Madoobe dhinaca kale musharaxiinta kale ee loolamayan madaxtinimada maamulka koonfur galbeed mudane Farkeeti iyo waliba musharaxiin kale haatan lahan koobo karna iyo madaxweynaha cunaqabateynka saari in si toos ah kooyan magaalada Baydhabo ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sheegay in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Laftagareen iyo waliba mucaaradka madaxtinimada maamul goboleedka iyo sheegay in dejiyaan arinta si xasilooni iyo si nabad iyo waliba wada hadal linka dhamaayo taasoo uusan ka baaqi in ka mucaaradka ka baajiyay safarkii iyo ka lahaayeen inay ka saadaan magaalada Baydhabo runtii wax maanta dhacay ani runtii aad uga hadli karo sababtoo ah waxaan filayaa maaha markii waxa filaysaa in aad looga hadlo oo looga hadli kara sababtoo ah Baydhabo ma tagi kartid ani aad wax kasto dhacay waxaan filayaa ma baha marka waxaan filayn inaan ka hadasho waa iska dhib badan tahay markii idinku raalli runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 la soo dhajiyay beesheedana waxay yiraahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa Ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay shalay inaan baxana rabnay aniga shalay waan hor istaagay waxaan yiri 6 saacadii la gaaro airportka lagu madegi karo markii waa iska runsanay laakiin waxa dhacay hadaan fiirino waxa waa aydan nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn wax ku talagal loo sameeyay ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airportka waa la hadlo waxaan ku yiri waratan odayaan ahay diyaaradda waa ii kireysan tahay wax kasta sameeyo hataa la ii sameeyo on si on adiga tixgelinaha la igu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysa diyaaradda shalay waan filayay in la ii sameeyay runtii laakiin ma aysan dhicin leeyma sameeynin anoo tii la yaaban haddana maanta hal saac airportka galnay saacadaasaan ka soo baxnay anaga diyaaradda qaadi leed waa la diiday waxaana diiday hebla diiday sidii loo lahaa kullee markii dambe diyaaradda waxay tiri 6 saac la joogaa inta ka badan manka aan waa la diiday runtii falkaas falan aad iyo aad uga xunahay waaye waxa anaga qabtana ma ahayn anina meesha tago runtii maamulkaas waa la ogyahay aniga dadka dhistay maamulka reer koonfur galbeed dhisteen laakiin dadkii shaqada ku jiray oo soo shaqeeyay oo shaqadaas wax ka hogaaminayaan waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaan airportkaas aniga ninkii loo diiday lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax la yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahayo doorasho wax meesha ka socdo waa magacaabis oo hal qof ku tasarrufayo inuusan qalinkiisii qabanayn anigu waan aaminsanahay laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninkuu rabana wax ka sii daroon nagu sameeyay anaga oday dhaqan aan leenahay waa la ogyahay Cabdicasiis aniga dhowr jeer aan wada aragnay madaxweyne Cabdicasiis dhowr jeer aan aragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyo anaga odaygeena ixtiraam odayaan leenahay waa la yaqaan odaygaas kala tasho odaygeena ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan ra'iisul wasaaraha fadhiyo midowga musharaxiinta fadhiyaan Cabdicasiis wuxuu yiri Shariif Xasan oo odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin mushaarka u qortay u qoran yihiin Shariif Muxudiin ma aniga in kira u maleynay haddaadan inkirayna waxaan ku yiri ayadoo la wada maqlaayo madaxda dhan ay fadhido haddaadan inkirayna ma cadaysi aad tiraahdo Shariif Muxudiin beeshan u horjoogo oo ay asaana horjoogno waana la ogyahay horta waxaan u maleynaynaa inuu sameeyay hadda odaygaygu inkiray aniga diyaaraddu ii diido ma tagi kartuu leeyahay runtii horta arinta ayada arin aad iyo aad foolxumo ah oo anagoo dhan foolxumo nagu asigana foolxumo ku ah waxaan filanayna ma aniga beesheedana ma qabato anaga odaygaas odaynoo ah odayaasha kale oo dhanba ayagu la tashaday ama uu hagaan maroojiyo ama ha la tashado wuxuu xaq u lahaa in odaygeena la tashado
haddana kursigaas in odaygeena lagala tashadaan qabnaa anaga sida saxdaana saas waa marka runtii wax hadda la sameeyo hayo wax aad iyo aad loola yaabo waaye runtii aniga waa arkayay meesha waxa ka socdo inaysan hadda doorasho dadban la dhihi karin xulasho la dhihi karin magacaabid ay ka sii hooseyso madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay wasiir inuu magacaabo anaga wasiiradan kala tashan jirnay beelahoodii iyo waxgaradka iyo wasiirada kale iyo hebel wasiir ma laga dhigi karaa ma mudan yahay laakiin in hindhibaan ninkuu rabo nin iska magacaabo ayada nafteeda runtii dhibaato ahayd laakiin haddana in airboorada laysu diido laisku bahdilo oo ilaa 6 saacadood aan meesha fadhidan runtii arrin aad iyo aad u foolxun waaye